subax laftigiisa caloosha waxa ku hadoodilay isku buuxinay caafimaad u tahay qofkaas dabcan fursad u helaya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلكين بصاحبي ذا قيمة بدنا كنت عندنا الكيك بشير بردر وفيشيال كسر وادت حنياشي كودنا فايدوي كبشر ركسنا رمضان يو حيابها واجبك إلا دون يوهين إنه وأنا سيسون كنا إنه ودورنا سلام كانوا إنه ونقضه مد يسووا طبعا واجباتك يشرودها كهرا إنه إنه ومالكي كويلا تناد وانا اسكن جبا بيش بركبسن رمضان بقولي فرحتها نقول ما يكوكل وصوص عندنا امر ربع باسو بمبش بشي برواقه مر يسو كلا صار مرنا هاي نو غارسيه لنا سو دواده دمانتي صاحبتي قيمه بدن انت هناك جاي وحسن شيغي ولا لك ولكن اذا له نادي قتالين صاحبي المركز سو دواده سبسكرايب لايك او كومنت غراشي كوينكي مقالده انا halkan diiso no way taxliyaashan muddo ayaan soo wadnay gabagabada taxliyaashan sida bishiba u gabagabatahay ayaan soo gaaray way waxaan idin la wadaagi doonaa hadii eeba laga helo horma kooban isla markaana saameyn leh sidoo kalena aan rajeynayo inaad aad kaga heli doontaan hadii eeba laga helo qormadan ayaa ciwaankeedu waxa uu yahay soonka maxaa uu daawo yahay aan ognahay bisha barkaysan Ramadan waa bil iyadu ka fadli iyo ajir badan 12 bilood sanadka darteed soonka muxuu daawo u yahay mowduucaas ayaynu qaadanayna qodobbo ilaa iyo sagaal ay soo gudbin doonaa qodobka koowaad waxa weeye dibirada caloosh waxaan ognahay qofka markii uu isku buuxiyo si gaar ah sidoo kale cunooyin kala duwan oo mixida markii uu qofkii laga yaabay in calooshi ay furto isla markaana dibiro qofkan uu qabto oo xanuuna uu ka qaado cunadaas badan oo daawo u tahay soon sababtoo ah qofka muddo dheer ayuusan calooshiisa waxba ku ridin waayo qodobka labaad waxa weeye taasina waa caafimaad markii loo eego calooshi markii aad wax badan ku rido oo aan la soconin waxa weeye cudurro badan ayaa la dhacay waxaan la yiraahdaa calooshu abuuso oo aan sidoo kale waxba ka dhaxin cudurrada idin caloosha ay markaas ku keensan saddex khatar weyn ay caloosha runtii ku dhacay laakiin dad badan ayaa wax ka buuxiya la seexda iyagoo soo kale aan wixii ay cunaan aan weli sii qashin ahaan aan looga sii saarin taasina waa dhibaato runtii waana waayo qodobka labaad waxa weeye joojinta sigaarka iyo dhammaan balwadaha kale haddii la soomayaa dee qofka balwadii sigaarka leh dabcan ma waxyeeleynaya caafimaadkiisa oo cibaadadiisa u gudinaya taasna bacda waxay keenaysaa qofka laftigiisa in adaptation uu sameeyo ku aadan sigaartiska iyo soo kale another drugs in uu dabcan xoogaa ka tagayso sababtoo wuxuu dareemayaa qofkan in uu dabcan ka maarmi karo oo uu iska deyn karo sababtoo mar walba haddii uu cuni jiray oo dhigi jiray kama maarmo sabab rasmi uu isaga daayana aanu jirin qofkii dabcan ma jiri lahayn wax uu isaga daayay laakiin hadda waxaa laga yaabaa inuu yiraahdo qarash dhibaato caafimaad darro culays xumaan kale qofkii uu wanaagsaneen caafimaadkiisa wax badan oo dhibaato ah oo liita in qofkii dabcan uu isku arko sababtoo ah waxa laga rabaa soonka qofkii markuu soomayaa bilan uu soomaya waxa laga yaabaa inuu yiraahdo alla ilaahay waa iska deyn kartaa ma iska diisid qofka waxa laga yaabaa inuu markii xisaabtamo oo iska daayo waana fursad cajiiba dadka sigaarka dhammaan balwadahana ay isaga joojin karaan bishan soon marka oo joojinta sigaarka dhammaan balwadaha kale ay dabcan fursad weyn u tahay maadaama la soomaya
qodobka saddexaad waxa weeye calool xanuunka dadka caloosha xanuunaya oo caloosha cudurro badan iyagoo ku qaba oo dabcan calool majiir iyo bahalla iyo waxyaabo kala duwan iyagoo qaba haddii caloosha aan wax ku jirin dabcan bahalladii iyo xanuunkii wixii dhan waaba ay ka degayaan sababtoo caloosha ayaa ah mid iyadu ibra oo faaruq ah sidaa darteed wax faa'iida oo dabcan laga helaya ma jirto haddii ay ahaan lahayd bahallada kugu jiray haddii ay ahaan lahayd xanuunkii markii loo fiiriyo waa ay yaraanayaan sababtoo soonka waa daawo xag alle eebba inooga keeno marka daawadiisa ayuu wataa xanuunkaas calooshana daawo ayuu yahay waaya qodobka afraad waxa weeye iscaateynta qofka buuran qofkii og wayda oo dabcan wax iska buuriyey oo faada oo fakiray 12 bilooda kale oo mar walba subax galab habeen casho qado maxaa la yidhaahdaa subax laftigiisa caloosha wax kooda la dilay iska muuxinaya caafimaad u tahay qofkaas dabcan fursad welaya sababtoo ah waa lagu qasbaya marka cunadan badan dabcan iska buuxin jiray inuu iska daaya sababtoo waa bilsoon sidaa darteed qofka marka fursaday u tahay inuu midaas isaguna sameeyo marka qofka buuran caafimaad u tahay isagoo jiim gelin isagoo rucleynin isagoo ordin isagoo xiiqin isagoo dhib isku geysan haddii calooshaan u baaniyo dhibaatada badan calooshaan ka jirtaa oo labanlaabane oo dabaqadaha ay ka furan yihiin oo wax walba lagu gurayo oo dabcan aan xad ka lahayn saddex gelin qofka uu isku xaaqayo oo aad muudadisto caadiya dabcan qofka oo fukanaya ayay kana culays iyo xanuuno badan u leeyahay marka daawo ayuu ku sameeyay saacadeenta qofkina oo fursad weeye qodobka shanaad waxa weeye xanuunka macaanka iyo xanuuno kale oo dabcan badanba soonka caafimaad leeyahay xag alla ayuuna caafimaad uga yahay oo dabcan eebba ayaa bishan khayraad badan iyo fadaa'il badan ku makaniyay sidaa darteed qofka xanuunada macaanka qaba laftigeeda dabcan waxay u tahay daawi u tahay sidaa darteed isagu laftigiisa waa uu ka faa'iidayaa oo daawadaas ayuu ka faa'iidaysanayaa waaya qodobka lixaad waxa weeye dadka qaba iyaguna keliya xanuunka oo ka caamanayo kale iyagu laftigooda soonka daawo ayuu yahay oo xag rabbi ah ayuu daawo ugu yahay oo dabcan eebe ayaa siinaya raxmadiisa iyo sidoo kale caafimaadkiisa u soo dejinaya maadaama eebe dartiis ay u afxiran yihiin muddo dheer eebe dabcan wuxuu ugu abaalgudayaa in uu dabcan xanuunkii uu ajar ugu bedelo oo ugu bedelo caafimaad maadaama dabcan eebe uu sameeyay eebana dabcan oo naxariis badan marka naxariistiisa caafimaad ayuu ku siinayaa wiye waaya qodobka toddobaad waxa weeye dadka qaboodna xanuunka oo huufaya oo aan tilaabo qaadi karin isagoo laftigiisa eebe naxariista ayuu siinayaa maadaama eebe dartiis ay u sooman yihiin muddadaas dheerna dabcan waxaa laga yaabaa in ay laftigooda ka helaan markii loo eego xanuunkan inuu ilaahay ka dibciyo oo uu caafimaad waya marka naxariista eebe ayay helayaan qodobka sideedad waxaa weeye dadka qabaya oo gaasiriga xanuunka la yidhaahdo isaguna soonka xanuunkaas caafimaad ayuu eebe soonka dartiis ku siinayaa oo waa ay ku bogsanayaan waaya sagaalaad waxa weeye joojinta cunista qaadka marka kuwa laftigooda magafashiyada fadhiya oo aan camal kale lahayn oo aan hami kale lahayn oo aan howl kale lahayn oo iyagu hooshooda udil ka dhigay si aan cunaya aan waxaan uga rabaa oo maqaadaraad oo nolol qiyaaliya ku jira laftigiisa dabcan waxay u tahay in ay qalbigooda iyo sidoo kale caqligooda saliimka ay ka shaqaysiiyaan oo ay joojiyaan oo ay fikiraan oo ay la qabsadaan muddadaas dheer oo aanu qaad cunaynin inay dabcan yidhahdaan alla ileh warniyo waxba kuma dabcan toorna oo horumar kuma gaaraysid ma fikirtid ma shaqaysatid mar walba iska fadhi reerkaaga mugow nafsadaada dayac dhib adiga maxaa la yidhahda muuqaalkaaga ha xumaado caafimaad darro lacagtaada ku burburi inuu qofka xisaabto maadaama muddadaas uu sooman yahay eebada
basis markii uu soo dejiyo qofka dabcan waa bini aadam oo qof weyn oo xisaabtamayo oo noolaa inuu wax badan xeeriyeysa markaan xisaabtamo oo dib isugu laabto nafsadiisa canaanto oo su'aal oo dabcan muraayad uu soo jeediyo yaa maxay tahay sida xaawi qofka uu xisaabtamo oo uu noqdo qof runtii barafagta oo mujtamaciisa kusoo kordhin kara asaga wax qabsan kara horumar isgaarsiin kara xisaabtin kara fiisla bartimi kara oo aroortiisa waxaa jirmaan kara hoolihiisa shaqada iyo wax walba soo qabsan kara oo dabcan waxaan xumaatada ku jiro iyo qaladka iyo dhibaatadiisa ka dhixi kara waayo intaasaan jeclaysta saxaabyaal in aan idinla wadaago isla markaana aan idinla qaybsado waxaan filayaa wax in aad ka korosaan la dhacdeen oo aad u bagteen inta wanaagga iyo waxsasheega ugula halka oo walaalkiina oo dabcan idinla xubnaha ayaad iga taleen mawduucan ka hadlayna waxa uu ahaa soonka muxuu daawo yahay qodobo dhowr ah ayaynu soo sheegnay intaas ayaan jeclaan oo kusoo gabagabeeyo maalintii 11aad waxaan rajaynayaa xun inaad ka faa'iideen oo la dhacdeen oo aad u bagteen waayahay aad ayay saaxiibayaal u mahadsantihiin inta dib u kulmi doono berito haddii ay banafta inugu simo muuqaal kale oo xiiso badan waa saaxiibkiin beerdaro idinleh bagul iyo farxad iyo baraaraha inagu dhamaysanka kulan dambe saaxiibayaal nabadgelyo isla socod wanaagsan mar walbana halkan igala socda muuqaalo iyo contact xiiso badan oo aan isleeyahay saaxiibada runtii wax un bay ka korsan karaan ayaan idiin soo diyaarin doonaa oo idiin soo wadaagi doonaa adinkuna subscribe like iyo fikir dhiibshada ayaa dabcan idinkaga baahanahay in aad igu gargashaan aad u mahadsantiin kulan dambe nabadgelyo